السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. koley maanta kulankeennan wuxuu khaas u yahay maaragtaane haweenka. gabadha muuminadda ee muslimadda makaanadeebay diinta islaamka ay ku leedahay, halkee diinta islaamku ay dhigtay, maxaase laga rabaa haweeneyda muslimadda? mid walba waa laba nuuc weeyaan, habeen iyo maalin, rag iyo haween, nolol iyo dhimasho, farxad iyo murug, qani iyo faqiir, janno iyo naar, muslim iyo gaal. ilaahay jalla wacalaa isagaa nolosha sidaa ugu talagalay inay mar walba laba nuuc oo iska soo horjeeda noloshu ay ahaato. marka haweenkuna keligood adduunka dusheeda inay kuma noolaan karayaan waa mustaxiil, ragguna keligood ma noolaan karayaana waa mustaxiil. markaasaa kaalinta haweenku nolosha ay kaga jiraan baa weliba muhiimad gaara la siiyey. limaada? lianna warshadda bini aadanka lagu dhex sameeya waxay ku taallaa caloosha hooyaday ku taallaayo caloosha ragga dhexdeeda kuma taallo. oo hooyadu marna waa warshad oo ilmihii caloosheeda lagu dhex abuuraya ilmihii. qur-aanka ilaahay noogu sheegay: walaqad khalaqna al-insaana min sulaalatin min tiin uma jacalnaahu nudfatan fi qaraarin makiin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله. الله أكبر. بني آدم كان أبوركيسي هراء إلهي وحان كسمين الطين نوبا أيان كسميني. والنبي آدم عليه السلام carada nebi aadan laga abuurayna 40 sano malaa'igtu ay midba meel ka soo qaadayeen. 40 sanana baa la yidhi waa la laaqayo, waa la isku laaqayay. 40 sanana baa la yidhi waa la sawiray oo sawirka ayaa taagnaayo waa engegayay. markaasaa ilaahay 120 sano kadib ayaa nebi aadam calayhi salaam ruuxda lagu afuufay. aadam abuurkiisu halkaasaa la soo mariyey. ama basharka kale oo dhan, bini aadanka kale oo dhan, ilaahay wuxuu yidhi waxaan ka samaynay baa ilaahay yidhi nudfa, biyaha yare isku tagaya, biyahaasoo maaragtaane haweenka iyo ragga labaduba ay ka imanayaan oo riximka ay ku kulmayaan ayaa qofka bini aadanka laga sameeyey. xadiidkii saxiixa ahaana nebigu waa kii lahaa 40ka hore maaragtaane waa nudfa, waa candhuuf yar oo meel taallo riximka dhex taallo weeyaan. 40ka dhaxana buu nebigu yidhi maaragtaane waa waslad yar oo hiliba. 40ka dhaxana buu nebigu yidhi waa xinjir yar oo dhiiga. 40ka saddexaadna buu nebigu yidhi waa waslad yar oo hiliba. uma ansha'naahu khalqan aakhara baa ilaahay yidhi fakasawna alcidaama laxma. uma markaasaa bini aadanka ilaahay lafihii iyo dubkii intoo la qaaday ayaa la abuurayaa oo la huwinayaa. 120ka habeen ilmuhu markuu caloosha hooyo saddexdaa marxaladood marka uu soo maro ayaa malag loo soo dhiibaya ruuxda, deedna malagu markaasuu ruuxda ku afuufaya. markaasaa malagaas ilmaha ruuxda markuu ku afuufo afar shay baa qofka ruuxda maaragtaan ee ilmaha ruuxda galay riximka galay
afar shay baa loo qorayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ajashiisii maalinta uu adduunyada ka dhimanayu ka soo bixi doono habeenkaa ruuxda lagu afuufay riximka hooye ayaa la qorayaa hani iyo faqiir midkuu noqona habeenkaasaa la qorayaa oo arsaaqada adduunyada inta uu joogo wuxuu cuni lahaayoo dhan habeenkaasaa la qorayaa shaqi iyo saciid ma mid liibaanay oo janno galayaba mise waa qof khasaaray oo naar ku dambaynaya habeenkaasaa la qorayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la qorayaa maaragtaane lab iyo dhidig midka uu noqonayana habeenkaasaa la qorayaa buu rasuulku yidhi deedna markaas raximkaasi kuma yaalla aabbaha calooshiisa kuma dhex yaalle hooyada caloosheeduu ku dhex yaallaa deedna markaa hooyadu halkaasee hawshu ay kaga bilaamaysaa matag baa ku bilaamaya lafagarac baa ku bilaamaya wax kasta u uraya markaa carfigii udgoonaa bay waayaysaa deedna markaasee 3 bilood oo dhan hooyadu ay galgalanaysaa laana raximkayga dhexdeeda khalqi waxaa lagu abuurayaa bashar bani aadam baa lagu abuurayaa oo haweenku marna waa masnac waa warshad weeyaan 9 bilooda ilmaha caloosha ay ku sido waa bayna alxayaati walmowt bay yidhahdaan culummadu haweenku nolol iyo geeri inta u dhaxaysa ayay ku jiraan oo walwal iyo walbahaar waxay mar walba mar way farxaysaayo waxay leedahay ilmo ayaad mar dhow aad dhali doontaa marna way murugoono waxay leedahay mad raaci doontaa mise waad ka hadhi doontaa hadday hooyadu umusha ay ku dhimatana buu nebigu yidhi waa shahiidad weeyaanoo ajru shahiid baa loo qorayaa qofka umushu markay ku dhimato haweenaydu deedna ilmihii markay caloosheeda uu ka soo baxaa markaa naftu ay ku soo noqonaysaa haddana nolol kale ayaa u bilaamaysa noloshee u bilaamaysa naxariistii ayaa qalbigeeda ku siyaadaysa naasnuujin baa u bilaami doonta hurdada ayaa ku yaraani doonta ilmuhu hadduu habeenka soo jeedo way la soo jeedaysaa hadduu bukoodana way la bukoonaysaa hadduu seexdana way la seexanaysaa hadduu isrogana way isla rogaysaa ma seexanayso mana yeelaysa siday haddee toole iyadu ay rabtee ilmaheegaa siduu rabay ayay markaa yeelaysaa haddee toole nolosha raggu kama warqabaan laakiin waa nolol haweenka u khaasa weeyaan ajar badanna way ka helayaanoo maxaa yeelay riximkooga basharka oo dhan baa soo maraya oo waxaa adduunyada dad jooga oo dhan ininka ayaa dhalay ininka ayaa ku soo tabcay ininka ayaa koriyo barbaariyey ininka ayaa naaska nuujinayey ininka ayaa maaragtaane la soo jeedayey aabbuhu waxaasoo hawla kama warqabee hawshaasi waxay khaas u tahay hooyada ayay khaas u tahay xaqa hooyadana nebigu meel buu saaray oo nebiga ninbaa u yimid oo yidhi dadkayga ayaa iigu xaq loonu samafalaa marka hore ii sheeg markaasuu nebigu ku yidhi hooyada haddana mar labaad buu nebiga ku celiyey haddana mar labaad buu nebigu ku yidhi hooyada haddana mar saddexaad buu ku celiyey haddana markii saddexaad buu nebigu yidhi hooyada deedna markii afraad buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aabbaha buu nebigu ku yidhi saddexda hore nebigu hooyuu sheegay hooyo inay xaqa koowaad la siinayo xaqa labaadna iyada uunbaa iska leh xaqa saddexaadna iyada uunbaa iska leh marka afraad buu nebigu yidhi aabbo nebi ciise calayhi salaam yaraan buu ku hadlay erayadii yaraanta markuu ku hadlay uu yidhi waxaa ka mid ahayd markuu qoomkiisa u sheegayay rabbigii inuu la soo dardaarmay wuxuu yidhi wabarran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya wuxuu aniga rabbiga ii amray oo maaragtaane rabbi igula soo dardaarmay intaan adduunyada ku noolahayna inaan hooyadayda maryamee cidlada igu dhashay inaan u samafalo ayaa lay amray walam yajcalnii rabbi igama yeelin aniga jabbaaran shaqiya mid jabbaara oo adag oo macsi badan oo kibir badan oo ahlan naara aniga ilaahay igama dhigin buu yidhi laanna nebi ciise calayhi salaam isaga aabba lagama abuurin hooyo keliya laga abuuray hooyadana waa lagula dardaarmay maxaa yeelay hooyadu mansilad bay ku leedahay diinta islaamka min saxaabada ka mida ayaa nebiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa inaan aado markaabuu nebigu ku yidhi labadaadii waalid ma nool yihiin mise midkood baa nool maya hooyaday baa nool buu ku yidhi hooyadaa raalli may ka ahayd safarkan aad iigu timiday may raalli kamay ahayn buu yidhi markaabuu yidhi sow jihaadka aad rabta inaad aaddo sow janno kama rabtid haa janno un baan ka rabaa markaabuu nebigu yidhi orodoo hooyadaa ku noqo
iyada lugaheeda qabso oo raali geli halka baad jannada ka gali doontaa adigu yee ilzam rajlayha thumma aljanna lugteeda qabo oo u duub oo adeec oo baari u noqo hooyada jannadaad ku rabtay inaad jihaadka aad ku hesho hooyadaa baad ka heli doontaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam marka xuquuqda haweenku ay leeyihiin xaqa hooyadu ay leedahay xaqa gabdhuhu ay leeyihiin annaka nebi maxamed baa noo sheegay calayhi salaatu wassalaam man caala jaariyatayni xataa tabluqa baa nebigu yidhi ana wa huwa ka haatayni fi ljanna ninka laba gabdhoodii ay u dhalatay buu nebigu yidhi ee labadaa gabdhood dhar u geliyey ee asturay ee koriyey ee barbaariyey tarbiyadooda wanaajiyey aniga ninkaasi jannada sidaasaan isku nahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam labadaa farood buu nebigu isku qabto oo wuxuu yidhi aniga isagu jannada sidaasaan isku nahay buu rasuulku yidhi lama sheegin ragga haween baa gaar loo sheegay hablaha ayuu nebigu sheegay sal allahu alay wasalam waayo habluhu ragga way ka naxariis badan yihiin way ka khidmad fiican yihiin way ka damqasho badan yihiin way ka xidhiidhin badan yihiin waalidku markuu gaboobo cidda hayn kartaa waa inan weeyaan hooyadu markay da'deedu ay weynaato aqalka ay ku noolaataa aqalka wiilkeeda maaha waa aqalka inanteeda ay ku noolaataa laanna haweenka ayaa qalbi jilicsan صفة إلهي بينه أبو عز وجل وصفة إلهي تبارك وتعالى والنسيين إن حريصه غالب نقطه لذلك هو يدو سقال بلون وورشد على وشيدو لبسنا ما ركتان علمها يري مالك لو حكعني ما يوحي يدعو انت أي الله عنيا سادر تيد بادتك الصومالي وحي رادان وحا أمشى أضنا بإلمها أضنا وذلك مركز إسلام تقول شو علمها عنت أصور كما فكره laakiin umusha maaragtana ayuu muqmad iyo subag iyo malab iyo timir iyo raashin buu u dhigaa waxa uu leeyahay ilmaha yar ayadu wax ka cunaya waa run nafaqada hooyadu ay hesho ilmuhu wax ku leeyahay ilmuhu aabba waxba ka cuni maayo laakiin hooyada naasaheedu ilmuhu ku noolaanaya 2 sano oo ku dhan markaas naaskaas hooyada habeenkii ilmaha yar hadduu kacu qayliyo ooyo oo inta nooca ay tahay hooyada garanaysa aabuhu ma garanayo odaygu wuxuu leeyahay ilmaha yar naga seex oo naaska naga siida naaska ku qabo waxay leedahay oohintii gaajada ma aha gaaja ma hayse laakiin jirra ayaa hayso uu xanuunsan yahay haddana marka uu ilmuhu qayliyo ooy markaasuu ku oran doonaa ilmaha yar naaska naga siida waa ka qayliyahan ka seexane markaasay odhanaysaa maytani gaaja ma hayse oohintii gaajada ma aha laakiin waxa uu leeyahay meesha aan jeefaan ku kaadshe gogosha aan ku jiifo way qoyday iga bedel buu leeyahay deedna way ka bedeli markiiba hadda baryahana waxyaabo kale oo la isku qabtaaba soo baxayba haddana markaasuu ooyaya la ilmaha yar maxaa helay dee buu leeyahay markaabay muu bukaa markaasay leedahay maya oohintii bugtaanta maahee lula ayaa hayso wuxuu leeyahay hurda ay haysay maama iseexi buu leeyahay deedna markaabay aqalka la galaysaa naaska intay ku qabatay seexinaysaa ilmaha yar oohin keliya ayuu ooyayaa laakiin oohinta inta macnay samaynayso aabuhu ma fahmaayo inankuna walaalkiina ma fahmaayo adeerkiina ma fahmaaye hooyada unbaa fahmaysa laanna sifada hooyada ilaahay baa geliyay tabaaraka wa tacaala marka haweenku makaanad baa diinta islaamka ayna dhigtay makaanad weyn waa hooyo waa warshad waa naas muujiso waa barbaariso waa mucallimad waa murabbiyad ilmuhu inta badan hooyo ag fadhiyaa aabba ma ag fadhiyo hadday hooyadu saalixad ay noqoto gabar wanaagsan oo diin leh alla ka cabsi leh hadday noqoto ilmuhu inta badan hooyada raacayaan ay ku dayanayaan laakiin hooyadu hadday noqoto to aan diin danaynayn oo ilaahay aan ka baqayn oo ninkeedana aan adeecayn oo salaada aanan ku dadaalayn hadday noqotona ilmuhu inta badan sida hooyadu ay noqotay yeelaan baa leeyahay marka hagaaga haweenku ay noo hagaagayaan waxaad ogaataan mujtamac oo dhan baa inoo hagaagaya walaalayaal laakiin haweenku bilcantu hadday naga xumaato waxaad ogaataan keligood ma xumaane mujtamaca soo socda oo dhan baa naga xumaaday walaalayaal marka maamadu mar waa warshad mar waxa weeyaan waa murdica
oo ilmaheeda ayadaa naaska nuujinaysa waxaa la doonayaa naaska markaad nuujinaysa ilmahaagana haddaad karaysa inaad weysaqab ku nuujisa ayaa fiican haddaanad karayna markaad naaska aad ku qabanayso waa inaad bisinka u qabataa waxaa dhacday bari qisad nin boqora oo boqoradii muslimiinta soo maray ka mid ahaa ayaa u soo galay xaajiyadiisii marwadiisii buu u soo galay isaga oo maaragtaana aad u murugaysan oo naxsan markaasay ku tiri maxaad la naxday maanta waad naxsan murug baa kaa muuqatay boqoroo say wax u jiraan markaasuu ku yidhi inankeenii ayaa gaaladii uu la dagaalami lahaayee jihaadka uu ku qaaday ciidankiisii waa la soo jebiyey isagiina uu soo baxsaday buu yidhi markaasay ku tidhi warkaasi war la huba ma yahay iska fiiri markaasaa maalmo kadib haddana boqorkii oo waxaa qasriga soo galay aad u faraxsan marka xaaskiisii baa ku tidhi maanta aad baad u faraxsantahay say wax u jiraan ii sheeg waxa uu yidhi marka inankeenii gaaladii uu ka adkaaday uu ka guulaystay haniimo iyo xoolana uu soo qaatay uuna soo galay magaalada oo galabta soo galay uu soo socdaa deedna markaasay ku tidhi warkan dambaa saxa wuxuu yidhi adigu soo fadhiiso maalintii hore warka aan kuula imidana waad beenayso run been buu noqday warkii warkan dambe maanta aan kuu sheegayna waa sax baa tidhee sidee wax u jiraan balii sheeg waxay tidhi inankaygaa curad maalintuu calooshayda uu galan caloosh riximkayga aan ku hubsaday ilma inuu galay luqmad xaaraana afka inaan geliyaan ka ilaaliyey tidhi maalintii aan dhalayna markii aan daahirsaday tidhi naas ma nuujin ilaa naaska waxaa nuujinayay bay tidhi anoo weyse qabay tidhi marka cunuga tarbiyadiisii halkaa aan ka soo bilaabay inuu gaalo ka soo baxsadaa waa mustaxiil bay ku tidhi waa mustaxiil aabbuhu sidaa wax uma ogaan karo laakiin hooyadaa u og hooyadu hadday hagaagsan tahay ilmuhuna uu hagaagi hooyadu hadday ba'naatana ilmuhu uu ba'naan laba qisadoodu mar horena waan ka hadlay dhegaysta labadaa qisadood qur-aanka ilaahay ku sheegay tabaaraka wa tacaala waa qisad nebi nuux reerkiisa ka dhex dhacday iyo qisad nebi ibraahim calayhim assalaam reerahooga ka dhex dhacday labada nebi waa laba rusul ulul casmi bay ka mid yihiin nebi nuux qisada ku dhacday waxay ahayd qoomkii isaga loo soo diray waa la halaago waa la baabi'iyey islaantiisiina waa lagu daray inankiisii curadna waa la halaago waa lagu daray bal u fiirso waliba nebi nuux calayhi salaam markii qoomkiisa la halaagayay ilaahay baa u waxyoodoo ku yidhi an isnaci lfulka biacyunina doon samayse baa lagu yidhi markaasuu nebi nuux doonta wuxuu ku dul sameeyey buur dusheeda markaasaa lagu yidhi adigaya dadka mu'miniinta ee ku raacay doontaa fuula khalqiga ilaahay abuuray ee arlada joogana labyo dhiddig ka saar doontaa wixii aanan fuulin oo dhan waa la halaagi baa lagu yidhi nuux calayhi salaam markuu muslimiintii doonta uu ku guray khalqiga adduunka joogayna loo dhawaaqeen layidhi labyo dhiddig ha ka fuulaan ayaa inankiisii curad buu u yeedho wuxuu ku yidhi yaa bunaya arkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin inankaygiioo doonta nala soo fuul kaafiriinta maanta macooda ha noqon maxaa yeelay adduunyada halaag baa ka dhacayoo kaafiriinta waa la halaagayaa yaa bunaya arkab macanaa walaa takun maca alkaafiriin wiilkaygii yaraayow nala soo fuul doonta kaafiriinta macooda ha noqon laakiin inanku jawaabtuu bixiyey dhegayso qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyowma min amri illaahi ilaa man raxim waxaala baynahuma almawju fakaana min almuqraqiin markaasaan inan nuux baa hadlo wuxuu yidhi buurtaa dheer baan ka fuulayaa biyaha imanaya aad sheegayso nuux baa u jawaabou ku yidhi laa caasima alyowma min amri illaah maanta amarka ilaahay cid ka badbaadaysaa ma jirto cid ilaahay u naxariistay mooyaane cid kale ma badbaadaysee maaha nebi nuux wuxuu yidhi biyaa imanaya bal amar ilaahay baa imanaya adduunka amar ilaahay baa imanaya maanta ciddii ilaahay u naxariista amarkaa ka badbaadaysee anu waxaanad ogayn baan ogahay buu ku yidhi doontaa ila soo fuul buu ku yidhi walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta macooda ha noqon ayagoo markaa wada hadlaaya ayaa biyihii iyo mawjkii iyo hirarkii biyaha dhex maray duufaankii deedna inankiisii uu qarqoomo halkiiba ku halaagsamayey
nabi nuux markuu arkay inankiisii oo la halaagay ilaahay buu baryo wuxuu yidhi wanaadaa nuuxun rabbah qaala rabbi innabnii min ahlii wa inna wacdaka alxaqu wa anta axkamu alxaakimiin qiila yaa nuuxu innahu laysa min ahlik innahu camalun gayru saalix falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilm innii aciduka an takuuna min aljaahiliin nebi nuux baa loo waxyoodoo lagu yidhi yaa nuux kan ehelkaaga ka mid maahayn baa lagu yidhi camalkiisu ma wanaagsanayn oo ma wanaagsan maxaa looga jeedaa ilaaha ku abuuray ku soo dirtay ma rumaynin adigana shareecadaada iyo diintaada iyo nebinimadaada ma rumaynin marka ehelkaaga kani ka mid maahayna baa lagu yidhi waxaanad aqoon iyo cilmi u lahayn hay weydiin baa ilaahay ku yidhi sidii baa inankiisa markaa lagu halaagay qisadii waa taas aabbo ayaa cunugiisii ugu yeedhaya inuu badbaadiyo oo cunugiina iska diidan yahay qisada labaad waxa weeyaan waa qisadii nebi ibraahim calayhi salaam iyo wiilkiisa ismaaciil dhex martay ismaaciil markuu ibraahimna waxa u tarbiyadaysay inankiisa ismaaciil waxa u tarbiyadaysay haajara u tarbiyadaysay hooyo markii ibraahim uu cillo kaga dhaqaaqay tidhi ma amar ilaahay baad nagaga tagtay markaasuu ku yidhi haa markaabay tidhi ilaahay nama dayacaya iska soco hooyo ilaahay ku xidhan baa kana barbaarisoo tarbiyadaysay ka kalena waxaa tarbiyadaysay hooyo ilaahay aan aaminsanayn nebigana aan aaminsanayn baa tarbiyadaysay marka haweenow idhegaysta haddaad doonaysaan ubadku inay noo hagaagaan ininku hagaaga haddii aad doonaysaan ubadku inay naga xumaadaan gabdhuhu dee markay xumaadaan ubadkooguna way xumaanayaan ogaada limaada lianna mujtamaca waxa ay ku fadhiya waa ininka weeyaan dugsiga ilmo kasta uu ka soo baxayo hadduu sheekh yahay hadduu shariif yahay hadduu madax yahay hadduu faqiir yahay hadduu qani yahay hadduu dhakhtar yahay hadduu injineer yahay waxaa dad maanta magaalada dhex socdo oo dhan mid aynan hooye korinin ma jiro mid aynan hooye tarbiyadaynin ma jiro mid aynan hooye maaragtaane dhabtiisa ku qabani ma jiro hagaaga aad hagaagtaan haweenow mujtamac oo dhan baa inoogu hagaagaya xumaanta ama ba'naanta bilcantu ay naga ba'naato waxaad ogaataan mujtamac oo dhan bay naga xumaanaya asmaa binti yaziid radia allaahu canha markay inanteeda ay dhistay laylatu zafaaf habeenkii inanteeda ay hoynaysay dardaaran cajiibay siisay waxay ku tiri cushkii yaraayaad ku jirtay waad ka baxday ku tiri yani cushku waa aqalka shimbirta xush buulkii yaraayaad ku jirtay waad ka baxday ku tiri halka qisada maxaa laga fahmayaa beriga inantu aqalka kama baxayn inta aynan qaan gaadhin way khidmaynaysay dibadday u baxayso loo diranayay laakiin mar hadday inantu qaan gaadhay baaluqdo albaabka kama baxayn inay hooyadeedii dibadda wixii looga baahan yahay aabbaheed iyo hooyadeed iyo walaalkeed baa u soo qaadi jiray u soo adeegi jiray iyadoo aqalka kama baxayn aqalka waxay ka baxaysaa inanta maalinta la meheriyo ayaa ninkeedu intuu gacanta qabtuu la baxayaa waa halka culimmadu ay yidhahdaan saddex aqal bay haweenku leeyihiin aqalka koowaad waa aqalka aabbaheed iyo hooyadeed aqalka labaadna waa aqalka ninkeeda aqalka saddexaadna waa qabrigeeda saddexdaa aqal bay haweenku leeyihiin afar aqal afraad haweenku male ay u baxaan male haba yaraatee haweenkeenna suuqa jooga sax maaha raggu inay suuqa joogaan weeyaan raggu suuqa waa inay ka adeegaan hooyada iyo inantu waa inay aqalada fadhiyaan maxaa yeelay haweenku way jilicsan yihiin in dibadda iyaka loo ogolaado maahina waa in la ilaaliyo aqalka lagu ilaaliyo oo aqalka lagu dhex xanaaneeyo oo adeega dibadda ragga ayaa iska leh haweenku adeega aqalka dhexdiisay leeyihiin iyaku mas-uuliyaddu waa mid bannaanka iyo mid aqalka dhexdiisa ta bannaanka ragga ayaa iska leh kasbiga raggaa laga rabaa aqalka ijaarkiisa raggaa laga rabaa dharka haweeneedu xidhanaysa ragga ayaa laga rabaa masaariifta reerka ragga ayaa laga rabaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa faranka dirhamka aad miskiin aad siinaysid iyo dirhamka maaragtaanay addoon aad ku xoraysay iyo dirhamka maaragtaanay
ilaahay diinkiisa aad ku bixisay iyo dirhamka maaragtaana reerkaaga aad ku nafaqaynayso dirhamka reerkaaga aad ku nafaqaynaysaa ajar badan oo ajar weyn ilaahay agtiisa buu rasuulku yidhi waa fadaa'il nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam marka gabar haweenku aqalka inay saddexda aqal bay haweenku leeyihiin marka buulkii aad ku jirtay ku tidhi oo Asmaa bint Yaziid dardaaranta inanteeda ay siinaysa dhageyso buulkii aad ku jirtay waad ka baxday tidhi waxaad ku hooyanaysaa caawa aqalka weliga horumaad arkin shakhsiga aqalka aad kula kaliyoobi doontana horay umaad arkin bay ku tidhi shakhsiga aqalka caawa aad kula kaliyoobi doonto carooska la kaliyoobaysaa waxay tidhi ninkaadaas haddeetoo la mas-uuliyaddii isagaa la wareegee laakiin waxay ku tidhi indhihiisa ilaali oo sankiisa ilaali oo dhegtiisa ilaali dhul u noqo cir buu kuu noqoni hooyo u noqo aabbuu kuu noqoni walaashii oo kale u noqo walaalkaayoo kale kuu noqonaya hooyo u noqo sida hooyadu ilmaha ugu naxariisato ninkaaga haddaad ugu naxariisato sida aabbuhu ilmihiisa ugu damqado uu u biiliyo u dhaqaalayo isaguna kuu dhaqaalayn walaashii oo kale u noqo walaalkeeda way jeceshahay sida walaashu ay walaalkeed u jeceshahay u ilaalinayso haddaad u ilaalisa ninkaada sida walaalku walaashii cadowga uga difaaco uu uga warhayo isaguna kaaga warhayn bay ku tidhi dhul u noqo oo dhulka waxaa lagu yaqaanaa sabir iyo adkaysi buu leeyahay haddaad ninkaaga dhul u noqoto isaguna samuu ku noqonoo korku saasuu ku harayn bay ku tidhi waxay tidhi saddexdaa hore waan fahmee saddexda dambe ii macnay bay ku tidhi hooya macaanay sankiisa ilaali maxaa uga jeedaa waxay tidhi adoo udgoon mar walba ha kuu yimaado adoo carfu udgoon lahee ha kuu yimaado ninkaadu indhihiisa ilaali bay ku tiriyo marka uu ku imanayo wax ka farxiyo mooyaane wax ka caraysiiya yuunan kaa arkin bay ku tidhi dhar qurux badan ha kuugu yimaado akhlaaq wanaagsan ha kuugu yimaado dhaqan wanaagsan ha kuugu yimaado hadal wanaagsan ha kuugu yimaado dabeecad wanaagsan ha kuugu yimaado aqal wanaagsan oo nadiifa ninkaagu ha kuugu yimaado waxay tidhi dhegtiisa ilaali maxaad uga jeedaa hadal xun weligay ninkaadu inuu kaa maqlin balu fiirso waa taa jaamacaddu aqalku waa jaamacad hooyadu waa murabbiyad hooyadu mar waa mucallimad hooyadu mar waa warshad hooyadu mar waa murdica oo naaska ilmaha nuujinaysa hooyadu 20 ubad intay dhex fadhiisato ayay mid walba raali gelin sifada raggu ma leh laakiin haweenka sifada iska leh raggu ilmo kaliya ma hayn karaan laakiin waxay hayn karaan mataqana haweenku 20 ubad ay haweenaydu intay dhex fadhiisato ka bukana dawadaysiin ka gaajoonaya cunadaysiin ka dharka u baahan dharkay ka badili ka isku kaadse kaadida ka biini maca dalika haddana odaygiyo hurdana quraac iyo biyaha iyo shaahay u diyaarin iyadoo sooman walibana ayaa intaasoo dhanna maalintii qada u karin waa yar daadii lagu soomay iyo kuma gaadhin waa 2 jir waa 3 jir waa 4 jir waa 5 jir waa 7 jir waa 8 jir mid walba quraacii bay siinaysaa qadadii bay siinaysaa odaygu laga yaabaa maalintii inuu saacada ka seexdo marka uu sooman yahay haddana 10 kaloo afurayso aqalka ku afuri doonta cashadoodii iyo afurkoogii iyo biyahoogii iyo shaahoogii iyo cuntadoodii bay haddana hooyadu diyaarinaysaa sifada raggu ma yeelan karaan hooyada uunbaa leh khilaafadii Cumar ibn Khattab radiyallahu anhu ayaa nin bay xaaskiisu hadal adag ay ku tidhi dana ninkii baa yidhi Cumar ibn Khattab haweenaydan wixii laga yeeli lahaa ka talageli oo kala tasho dana markaas uu yimid Cumar ibn Khattab isaga laftigiisa aqalka dhexdeeda lagu haysto la canaananayo markaasuu ninkii bannaanku ka maqlay Cumar oo laftigiisa la haystaba wuxuu adiga hadalkii lagu lahaa waaba fududaaye hadalka Cumar lagu leeyahay culayskiisa baleeg buu yidhi Cumar bay balaaya haysataaye ta adiga ku haysataaba la qaato yidhi ta Cumar haysta waaba culays batiisu aayar buu iska noqday baa lidhi ninkii Cumar baa markaa maqlay shanqadhiisii Cumar uu soo baxay ninka iska socdo arkay waa u yeeray war kaale maxaad doonaysaa maxaa u socotay ii sheeg wuxuu yidhi wixii aan la socdayba wax ka daran adiga ku haystay buu yidhi maxaad rabtay dee xaaskaygii baan rabay inaan kaala tashado hadallo aan fiicnayn bay igu tiraahdaa si aan wanaagsanayn bay iila dhaqantaa dee markaan arka adiga sida lagula hadlaayo
taydii waxayba noqotay buu sheekad bay noqotayba marka Umar ibn Khattab ayaa ku yiri sida aniga layla hadlay mad maqlaysa ha waan maqlaayay buu wuxuu dhageyso fariiso saddex dab oo raggu aynan hayn karin bay dumarku naga hayaan shahwada raggu waa dab ayaka naga haya buu yiri dharigu waa dab ayaka dhariga inoo kariyo raashinka inoo kariya ubadka hayntooduna waa dab inaku ma hayn karnay ayaka haya marka maalin markay nagu yar qayliyaan nagu qarxaan iska sabrayna iska socod ku yiri dadkaas ajaib bay hayeen dad waxay haayeen nabi maxamed uu dhisay calayhi salaatu wasalaam asmaa bint abi bakr siddiq radiyallahu anhum ayada hooyadeed aabaheed dhamaan raalli allah ka wada noqdee ayaa u timid aabaheed abi bakr siddiq radiyallahu anhu waxay kaga ashkatoonaysaa ninkeeda Zubayr ibn Awwam waa nabiga inaabtigi weeyaan waana tobankii jannada loo bishaareeyay nin kamida weeyaan marka bay tiri aaba Zubayr hal layga furo oo ninka hal layga fasaxo waayo waxay tiri uu idilaa marka labaadna waxay tiri xagga gacantana waa ku adag yahay wax bixinta oo masaariif ugu filan ima siiyay tiro dharna iima iibiyo dharka ugu dalgoogo ay arag bay ku tiri marka Abi Bakr Siddiq sidaas uu eegay inantiisa Asmaa lama ooyin kama nixin wuxuu ku yiri aaba Zubayr ma taqaana cid uu yahay waa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ina abtigi weeyaan وانا tobankii jannada loo bishaareeyay nin kamide aaba ninkana janno u socday jannada hal la gashide iskaga sabir buuri nolosha adduunyada oo yar oo koobanay wax dhis dadkaas waxbay dhisayeen dadka zamankeena ka warrama sida wax loo dhiso iyo sida wax loo dumiyo midkee Soomaalidu taqaana sida wax loo dumiyo xariifiye ku nahay sida wax loo dumiyo raggoogiyo haweenkoogu waxay ahaayeen dad wax dhisay ahaayeen dad wax dumiya ma ahayn lana mujtamac nabi maxamed baa dhisay calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed caalamka diyaaradana kuma soo kordhin maraakiibna sida loo sameystay kuma soo kordhin petrolka iyo naaftada arlada ku jirta sida loola soo baxana kuma soo kordhin daymanka sida loo baarana kuma soo kordhin nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam hubkan wax gumaadee adduunka gaaladu ay samaysatana kuma soo kordhin nabi maxamed wuxuu ku soo kordhiyay caalamka sida dadka bini aadanka loo islaaxiyo looga shaqeeyo loo dhiso ee dadku dad wanaagsan u noqdaan buu nabigu ku soo kordhiyay caalamka dad wanaagsan buu ku baaray adduunka dad wanaagsan dad ilaahay yaqaana oo rasuulkiisa yaqaana oo bini aadanka xuquuqdooda yaqaana oo meeshay ka yimaadeen yaqaana maqsadkii loo keenay adduunka yaqaana meeshay u socdaanna yaqaana cidda samaysatay keentayna yaqaana dadkaasuu nabi maxamed adduunyada ku soo kordhiyay dad wanaagsana dad ilaahay yaqaano akhlaaq wanaagsan leh oo naxariis leh oo cadaalad leh oo kala dambayn leh oo maxabba leh oo ixtiraam leh oo isku damqanaya oo isku naxariisanaya dadka buu nabi maxamed adduunyada ku soo kordhiyay calayhi salaatu wasalaam inaga zamankeenan dad badan waxay leeyihiin horumar baa la gaadhay waa zamankii horumarka may horumar ma gaadhin bal zamankan waa zamankii dib u dhac weeyaan dib baan u dhacnay hoos baan u dhacnay hoos horumar waxaa gaadhay mujtamacii magaalada madiina ku noola uu nabi maxamed uu dhisay uu tarbiyadeeyey waa mujtamacii asxaabu muxammadin sala allahu calayhi wasalam man kaana mustannan falyastanni biman qad maata ciddii cid ku dayanaysa buu yidhi ibni mascuud raggaa dhintay ha ku daydaan raggee abi bakar iyo cumar iyo nebi maxamed saxaabatu rasuulillaahi ha ku daydaan dad buu nebi maxamed intuu dhisay dadkaana waxa uu nebi maxamed uu ka dhisay marka u horeysa waa xagga caqiidada xagga ilaahay macrifadiisu ka dhiso qalbigoodu ilaahay ku xidhay ilaahay markay ku xidhmeen ayaka dhexdoodiina waa isku xidhmeen oo qof walba qofka kale xaqiisii buu siiyey
magaalada madiina nabigu soo galay markaas reer madiina ku soo xoobtay nabiga saa u soo hoos fadhiisteen Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu saxaabiga yahuudiga ahaa ee quraanka ilaahay jalla wa ala uu ku amaanay ayaa yiri majmaci baan dhex fadhiistay maralay markaa nabi maxamed wajigiisa arkay ayaana sare wallahi wajigan waji beena la ama habu ninkan wajigan wajigiisa markaan arkay buu nabi maxamed ayaan yiri wajigan wajigii been sheegay maaha beena la wajigiisi maaha erayga ugu horeey nabi maxamed aan ka maqlayna wuxuu noqday ya ayuha an-nas afshu as-salama wa at'imu at-ta'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bis-salam bu nabigu yiri ya ayuha an-nas dadaw afshu as-salama salata dahdina fafiya wa silu al-arham rahimkana hidiriya wa sallu bil-layli wan-nas niyam habeenka dadku markay jiifaana kaca oo salaata leylka tukada تدخل الجنة بالسلام جنة ربك نبتقليات كقليسان أبو رسولك يلي مكة انتو نبي جوغي عقيدة إيمانك يقين تو مدى أصور لسي مدينة مركو نبي يمدين أخلاق دي بو نبي بدل يا أخلاق دي يقيم كي وحي كل اسمه بو نبي مدى أشياء عود المريض فك العاني أطعم الجائعة كينا قاجونا يعنتيسية حديث قال ري مدينة مركين مغلين مقالة مدينة قف قاجونا يا لقوايي عود المريض با نبي يري كينا نقبك هذا الزيارة ابو رسولك يري كينا نقبك هذا الزيارة ابو نبي يري هل قفدوا مقالة مدينة كبك هذا مسلمين تري مدينة قفك ويصبوا قنجرين مقالة مدينة قفك غريبك كوية كعصب وحا أمودي جري إن قفك مقالة مدينة دتك كنا لونا أي قرابدي سي أي تهي قرابنا ميسنا هين إسلام نمي كو حديدينيين oo xadiista nabiga ku dhaqmayeen iyaku halka inagu xadiista nabiga dhagta aan ka maqlayno ta kalena aan ka saarayno oo qoontiya macluumaadkeena maanta ay noo bateen laakiin ku dhaqankii diinta nolosheena oo maalinba maalinta ka dambaysa uu si yaraanayo iyo kana noloshooda maalinba maalinta ka dambaysa waxa kordhayay ku dhaqanka diinta ay ku dhaqmayaan ba kor u socda iyaka نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم عبد الله بن مبارك بأورنجري آداب يرؤو كوبانون هلو يعني الدين تإن يرون كبرنو أو كدقنو أيانو قباهي بدن هاي إن بدنون برنو أو عمل فلي وينو زمن كوغا إيكا عمل فلك الدين تأيا غالبها هلك الزمن كيننا مانت إنك معلوماتكو أي غالب نون نقدين عود المريض كين أبوك زيارة أبو رسولك يلي أطعموا الجائعة كقاجونين عنتيسية جارك دركسن بو نبي يلي جاركي سنة أي قاجونا يعني إيمان ملا أبو رسولك يلي لكي سقو دركسن جاركي سأنكور قبل حالة دي كل جيران إيمان ملا أبو رسولك يلي جاركاغا waxtar hadaad waxtar u yeelanayna sharkaaga ha ka nabad galaan uu nafiye nabigu qofka sharkiisa jaarkiisu ka nabad gali waayaan qofka iimaankiisa nabigu uu nafiye uu tirtiray dhaar buu nabigu hormariyo wuxuu yiri wallahi la yu'minu ilaahay baa ku dhaartay ma aaminin wallahi la yu'min ilaahay baa ku dhaartay ma rumayn saddex jeer markuu nabigu dhaartay baa lagu yiri waa ay nabi allah qofkaasi وقفك جاركيس وشركيس كنبت قلي وايام قفكاس إلهي يا رسول كيسي آخر مرة مين برسولك يدي مرة مين جاركاغا واحتر ويالو حبادو تري ويدي دفي أديك كاوايين جاركاغو دبت هذا كنبت قلان بس نصحابة نبيك كمدا أيا نبيك كويري gabadh heblayo la yiraahdo dariskayga salaad badan way tukataa soon badan way soontaa laakiin jaarkayga carabkayga ku dhibtaa buu ka yiri barkaabuu nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri hiya fi an-nar taasi hadday sida ku dhimata naar bay ku dhex jirtaa buu rasuulku yiri ninka loo saxaabiya hadloo yiri anigana gabadh heblayo la yiraahdo dariskayga salaadeedu ma badno soonkeeduna ma badno macnaha shanta waqti tukata ramadaanka bisha ramadaanna way ka soontaa
laakiin jaarkeyga ma dhibtay buu yidhi carabkeeda kuma dhibtay ka waran nebi allow markaa buu nebigu yidhi taasi jannay ku jirtaa buu yidhi janno diin fiicnidu salaad badnin maaha soom badnina maaha diin fiicnidu waxa weeyaan diin wanaaggu waxa weeyaan min xusni islaami lmar'i tarkuhu maa laa yacniih diintaada wanaaggeega waxaa lagu garanayaa maa laa yacniga inaad ka dheeraataa diintaada wanaaggeega waxaa lagu gartaa oo lagu qiimeeyaa akhlaaqdaada wanaagsan baa lagu qiimeeyaa diin wanaagga qofka uu leeyahay waxaa lagu gartaa xalaal cun qofku markuu yahay diintiisu qofkaasi waa diin qiimo leh oo tayo leh weeyaan man yaahudu canii haؤulaaءi اlkalimaat fayacmalu bihinna aw yucallimu man yacmalu bihinna buu nebigu yidhi sal alla alay slam shantaa kelmadood buu nebigu yidhi ayaa iga qaadan oo ku camal fali ama sii bari qof ku camal fala abaa hurayra ayaa yidhi anigaa nebi allow shantaa kaa qaadana ii sheeg markaa buu nebigu ka bilaabo wuxuu yidhi ittaqi lmaxaarima takun acbad annaas wixii ilaahay kaa xarimay oo dhan ka dheerow arsaaqaddu xalaal iyo xaraam bay kala leedahay wixii la xarimay ka dheerow baa nebigu yidhi dadka qofka ugu cibaado fiican ee ugu caabidsan baad noqonaya buu rasuulku ku yidhi warda bimaa qasama allaahu laka takun aqna annaas arsaaqadda inta rabbi kuu qadaruu kuu qaybiyeyna ku qanac dadka qofka ugu qanisan baad noqonayay buu rasuulku yidhi waaxibba linnaasi maa tuxibu linafsika takun muslima naftaada waxaad la jeceshahay dadka kale la jeclow qof muslima oo toosan baad markaa noqonaye naftaada waxaad la jeceshahay dadka la jeclow muslim baad noqon wa axsin ilaa jaarika takun mu'mina jaarkaagana wanaag u samee buu nebigu yidhi oo wanaaji oo hadal wanaagsan kula hadal oo dhaqan wanaagsan kula dhaqan qof mu'min oo iimaan laad markaa noqonaye walaa tuktir daxika baa nebigu yidhi qosolkana ha badsan qosol badnidu qalbiga ayay dishaa buu rasuulku yidhi shantaa dardaara nebi maxamed baa siiyey abaa hurayra oo yidhi kuna camal fal dadkana sii bar buu nebigu yidhi say ugu camal falaan ama qof ku camal fala gaadhsii buu nebigu ku yidhi ilaahay caza wajalla han ka cabsanno ilaahay han u soo noqonno han toobadkeenno oo halka diintu ayni dhigtay dee inninkuna halkaa ha ka dhaqaaqine halkaa ku haya diintu nolosha way kala qaybisay diinta islaamka aqalka bannaankiisana ragga ayaa mas-uuliyadda la saaray haweenkana mas-uuliyaddooda waa aqalka dhexdeeda weeyaan xabsata binta siriin raxmatullaahi calayha imaam dhan bay walaal la ahayd gabadhaas imaam maxamed bin siriin sheekhii tacbiir ru'ya kitaabba wuxuu leeyahay tafsiir laxlaam la yidhaah wuxuu cabiri jiray riyooyinka walaashii weeyaan xabsa marka 20 sano baa la yidhi masalladeeday dul ictikaafaysa masallahay ku dul tukato sajaadadeeda laba marun bay ka kacaysa laba jeer xaajada bini aadamku ay leeyihiin markay qabatana baytalmeyga gelaysay iyo marka maaragtaan ay cunto ay cunaysana way ka kacaysaa la yidhi 20 sannadood waxay dul fadhideen sajaadadeedaas hadday seexanaysana halkaa bay kor seexanaysay hadday tukanaysana halkaa bay ku tukanaysay mar qur'aan ay akhrisato iyo maray tukato 20 sano baa la yidhi kamay bixin kamay dhaqaaqin masalada dusheeda maalinkiina way sooman tahay habeenkiina qiyaamuleyl bay u taagan tahay almu'miniin juwayriya radia allaahu canha ayuu nebigu habeen halkii salaataleylka ay ku tukanaysa iyadoo ku tukanaysa ayuu nebigu salaaddii fajar buu ka dhaqaaqay deedna markaa buu nebigu maskiidka tegey xilliga barqadii buu ku soo noqday barqadu waa xilligan oo kale aan joogno weeyaan markaasuu nebigu ugu yimid almu'miniin halkay ku tukanaysay fadhidaa markaa buu nebigu ku yidhi ma halkaan kaaga tegaad weli joogtaa ha halkaad xalay igaga tegtay baan fadhiyaa bay ku tidhi waa meeqa saaco 10 saacadood ama 8 saacadood qiyaastii halkaa bay dul fadhiday ku cibaadaysanaysay
maray qur'aan akhrisato iyo maray salaad tukato iyo maray ilaahay tabaaraka wa tacaala ay barido iyo maray dikri samayso iyo maray istighfaar samayso markaa buu nebigu ka naxay calayhi salaatu wasalaam laana nebigu uu naxariis badnaa markaasuu ku yidhi afar kalmadood oo 3 jeer oo keliya aan ku celiyey ayaa camalka maanta oo dhan halkaa aad la fadhiday haddii miisaanka lala saari lahaa kafadda kale u dhigmi lahayd buu nebigu ku yidhi subxaana allaahi wabixamdihi subxaana allaahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshihi wamidaada kalimaatihi cibaadada ay ku daalayaan buu nebigu uga naxariisanayay innakana dharmeydhka ayaa inooga naxariista dheri karinta ayaa inooga naxariista waa kaas haweenkeennu subaxdii bay galayaan madbaha beeqay ka soo baxayaan bacda alcishaa'iya ka soo bixi maalinta dharka aad maydhaysaanna waxaa la moodaa aqalka hudhedh in lagu dhex daadiyo lagu dhex iibinayo xaajaadka wakhtigaa ku bixinayna yareeya xaajaadka waa inaan wakhtiga yarayno hurdada yaree xilliga cuntada la karinaya yaree dharmaydhiga yaree dharmaydhiga sidaan u yaraynaynaa israafka nolosheenna ka ilaalinaynaa dheri karinta sidaan u yaraynaynaa israafkaan iska ilaalinaynaa cuntadeennu ha yaraato dharkan ayaanan ku israafine xaaje intaan ubadku u baahan yihiin baa loo iibiyaa mar keliya bas maanta dhaqaalaheennii oo dhan wuxuu ku baxay raashin iyo dhar iyo daawo daawada maxaa keenay ilmuhu inuu mar walba bukoodo waa raashin ka badanaan cunayna ayaa keenay saxaabada xaajadoodu way koobnayd laakiin cibaadadooda ayaa badnayd haween iyo ragba dhammaantood xaajaadkoogu way koobnaayeen laakiin cibaadadooda ayaa haalib ahayd iyaga marka ilaahay caza wajalla ayaa inoo nicmeeyey oo islaamnimada inagu deeqee dadkaasaa liibaanaha ku dayanoo dadkaas dad lagu daydo dadkaasaa ugu khayr badan qarnigii koobaad eeg haddaad ku dayan kari weyda qarniga koobaad qarniga labaad kaalay qarniga labaad haddaad haddana ku dayan kari weyda qarniga saddexaad kaalay saddexdaa qarni waa quruun almufadala waa saddexdii qarniya fadliga uu nebigu ku sheegay salafu saalixna waa saddexdaa qarni weeyaan waxa ka dambeeya o dhan salaf ma aha oo atbaacu salaf baa la odhanayaa dadku hadday muslimiin noqdaan oo dadkaa saddexdaa qarni ay raacaanna waa dadkii salafka raacsanaa baa la odhanayaa ilaahay caza wajalla kuwii raacayna kuwa hay naga dhiga innaka dadkaasaan ku dayanno oo diinteenna islaamka ee ilaahayna siiye caza wajalla han ku dhaqanno oo han ku ubadkeenna han barno ilmaheenna han barno ubadkeenna culummo han ka dhigno walad saddexda ajarkoodu awnasan go'aynin waa waalidka ka tegay walad saalixa iyo caalim cilm lagu intifaaca ka tegey iyo nin khani oo sadaqad jaariye ah ka tegey saddexdaa buu nebigu uhi camalkoogu ma istaagaya wuu soconayaa waa dhimatay adigii ilmahaagaa kuu soo ducayn camalkaaguu soconayaa cilmi baa ilaahay ku baro ummaddaad cilmigii bartay ardaydaadii baa maaragtaane dad kale cilmiga sii baray halka ajarku iyakana uu soconaya sadaqad jaariye ah aqal baad meel ka dhistoo tiri aqalkaa waqfi baan uga dhigay madrasadda iyo maskiidka ajarka waa kuu soconaya haweenkuna diintan islaamka qayb weyn baad ka soo qaadateen qaybtiinina hadda ka qaata khadiijatu lkubraa radia allaahu canha qof ugu horreeyey nebi maxamed rumeeye waa ummulmu'miniin khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey diin islaama dhaqaalo ku bixiyey waa khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey janno loo bishaareeyey waa khadiija radia allaahu canha qofkii ugu horreeyey diin islaama loo dilay u dhintay waa haweeney sumaya radia allaahu canha bal abi bakr sidiiq radia allaahu canhu saxaabada ajiladooda oo dhan baa la yidhi sababta ay ku islaameen haween baa lahaa cumar haweeney buu sababteeda ku islaamay cusmaan binu cafaan radia allaahu canhu haweeney buu sababteeda ku islaamay dumarku diintan qayb weyn bay ka soo qaateen qaybtiina ininkuna ka qaata oo culummo soo saara oo xufaad soo saara
oo ubad tarbiyadaysan oo diin la aqaladeen ha ka soo baxaan goormay ubadku tarbiyad diineed ka muuqan waa marka aqalka diini ay taallo aqalka diinta ay oolaysan ayaa ka mas'uula haweenayda iyo ninku labadaba waa ka mas'uul laakiin maadaama haweenku aqalada u badan yihiin ay fadhiyaan inta badan ilmuhuna inta badan hooyada uu la joogo sida hooyadu ay noqoto ilmuhuna yeela marka dambe marka tarbiyada ubadka diin ku saleeya haday guur tahay haday dhar qaadasho haday tahay haday tacliin tahay haday jaarka la dhaqankiisa tahay haday qaraabada xiriirinteeda tahay waxa soo dhan waxa laga rabaa hooyadu ilmaha aqalka inay ku barto inantaadii baad dhisaysaa oo daadii la guurinayay gaadhay soo eegaadu ha ku oran aadu gabadhaada u soo eeg ninkaad u dhisayso waliba hooyadu inay wiilka u soo haasawdo weeyaan aabuhuna inta u soo haasawo ceebna maaha inaad tiraahdo qof wanaagsan haddaad aragto inantaydii way qaan gaadhay haddaad rabto diyaar baan kuulahay inaad tiraahdo ceeb maaha cumar bnu khadaab baa abubakar u bandhigay xafsa haddana cusmaan buu u bandhigay labadoodii cusmaan uu ka cudur daartay abubakarna uu iska aamusay muddo yar kadib xafsa waxaa soo doonay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inanta waa inay noqotaa aqalka hooyadeed inanta waa inay ku sugtaa calafkeeda haddii ilaahay reerkii caroos u qadarana carooska shariicada islaamka ku saleeya ka daaya macaasida dumarow ka daaya macaasida isdhexyaaca ka daaya ikhtilaad lama ogolo rag iyo haween inay isdhex galaan lama ogolo haweenku iskood ha u farxaan wax shariicada waafaqsanna ha ku farxaan lama diidano carooska rag iskii ha looga farxiyo wax shariicada islaamka waafaqsanna ma aragtaanay ha lagaga farxiyo geeridii waa la mid guurkii waa la mid tarbiyadii ubadku waa la mid nolosha oo dhan waxaa la doonaya in lagaga daydo diinta islaamka laga qaato tacliin iyo tarbiyad kuwa diinta ku dhaqmana allah inaga dhigo insha allah jamaacadada dacwaduna way ni yimaadaan ha laga faa'iideysto oo mastuuraadka ha lala baxo oo ha lala fadhiisto haweenku haweenka ha ku dadaalaan ragguna ragga ha ku dadaalaan odayaashiina iyo wiilashiinana soo saara oo dacwadda u saara oo ilaahay dartii ha u baxaan hadday islaaxaan ay hagaagaan raggu mujtamac oo dhan baa iyakuna ay sabab u noqonayaan in ilaahay noo hagaajiyo laana reerka ragga ka mas'uule haweenku ka mas'uul maaha hadduu ninku ba'naado dee haweenayduna way ba'naan marka hagaaga ragga ayaa muhiima raggana waxa keliya maanta ay ku islaaxi karaan waa inay mujtamacan ka dhex baxaan ilaahay dartii u baxaan kuwa diinta daneeyo ee diinta ku dhaqme ee diinta ku camal falana dee allah inaga yeelo wixii khayrna soo dhex marana ilaahay baana waafajiyey waa laynoo ducayn doonaa marka dambe sheekha inoo khatimi doona insha allah culumadii baa inala joogta annaku arday baan iska nahay wabilaahi towfiiq